qof kastoo jaamacad ka soo baxa aqoon-yahan ma aha. sida qoraa iyo qore oo kale ay u kala duwan yihiin. jaamacadda dad ka soo baxa badanaa ama dadku wax bartaba aan idhaahno labay u kala baxaan. kuwa jaamacadda ka soo baxay labay u kala baxaan. mid oo u baranaya maaragtay inuu imtixaan ku gudbo oo shaqo ku helo, iyo mid labadaas dan isagoo leh laakiin kalgacayl u hayo waxbarashada. marka waxaan lagu misaali karaa ardayda badanaa aan maaragtay masaal ahaan oon ugu sheegaa, waxaan leeyahay bikeeri ama koob biyo ku jira, biyahaas haddii lagu dhibciyo wax yaroo caano ah waa isbedelaya biyihii, dhibicba ha ahaato. sidaa oo kale ayaa ninka aqoon-yahanka ah cilmiga uu barto isbedela ku dhacaya. isbedela ku dhacaya, naftiisa wax u taraya, dalkiisa iyo dadkiisa wax u taraya. waayo wuxuu samaynaya isbedeluu samaynaya. laakiin kan jaamiciga keliya oo aan dhihi karna graduate, waxaan ku mitaali karnaa laba loox haddaa isku agdhejisid midba midka kale ma saameyn kara. sida dhibicda caanaha ay u saamaysay biyahaas koobka ku jira uma saameeya. marka ninka jaamiciga kale waa labadaa loox. cilmi kasta uu barto waa sidiisi, qabiilkii uu daba taagan yahay, wixii maaragtay dabeecadii u yahay, isma bedelo, waxna ma bedelo. intaasaana badanaa loo badan yahay. marka dhallinyaradiini marka aad wax dooranaysaan, wax baranaysaan, doorta wax aad wax ku bedeli karta. taas waxay ku imaan karta keliya waxaad jeceshahay, ma aha wax soomaalida tii baadiyaha waxaa dhihi jiray naqraadis. inta badan cilmiga sidaad ka warqabtaan laba ay u kala baxaa, yacni culuunta sayniska ah iyo culuunta maxaanku yidhaha adabka ah. mar soomaalideeni waxay wada jecel yihiin sayniska, way iska caddahay. maxaana loo jecel yahay culuuntaas? dhaqaale, naq, roob kaasay leedahay. laakiin adabka ma laha. sida macallinka waxaa la yidhaahdaa waa shumca oo kale, isaga waa gubtaa laakiin wuxuu iftiimiyaa. nin macallina oo daaro dhistay ma arkaysaan, laakiin daduu soo saaray, adduunya aakharo ku liibaanaya insha allah. marka maxaan ku yidhaahdaa ninkaas yaan la noqonin jaamici keliya, waa in la noqdaa maaragtay aqoon-yahan in la noqda. ma rabo inaan ku dheeraado maaragtay insha allah. wabilaahi towfiiq. wasalaamu calaykum.